بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha Soomaaliyeed waan idin salaamay rag iyo dumar meel kasta dunida kaga sugantihiin xawlul caalam. Ilaahay idinku xifdiyo idinku nabad yeelo. qof kastoo kurbaysan Ilaahay kurbadaha ka faydo, kii barwaaqaysan oo nimcad haysta Ilaahay ha u siyaadiyo. waa walaashiin waxaan doonay inaan xogaa idinka qisoodo biyihii lagu akhrinayay bismillaahi raxmaani raxiim 786 oo aan isticmaalay waxyaabo yaab lana ka arkay oo saameyn ku yeeshay wixii jirkayga ku sii haray haraadigii weli shayaadiinta ka haray jirkayga ku jiray. waxa dhacday maalin dhaweyto arbacadii habeenkeedii ayaan mataqaanaa biyo ku akhristay, biyo aan gob ku darsaday oo hore u sii diyaarsaday litar iyo bar ayaan caagintaan ka buuxiyay ku akhriyay. markaan ku akhriyay waxaan sameeyay waan cabay. aniga horey baan tahliisha u cabi jiray, ama aan ku akhriyo suuratul baqara ama aayatul kursiga ku celceliyo ama mucaawadateynka iyo ama inta kale ilaahay quraanka iga waafajiyo iga karsiyo. saameyn intaa la eg kuma yeelan jirin. waxaan sameeyo kale markaan cabitaanka laga soo reebo inaan cabay bisinkii aan ku akhriyay biyaha. waxa kale oo sameeyay sankana waa ku jiiday. waxa laga yaabaa qaybtiin inay dareemaan cuno xanuun joogta oo muddo badan hayay, oo quman xanuun wadna garaac ku kalifay oo qumanka laga qalo ama cirbad qaataan ama kaniini la qadin, iyo samboor xasaasiyad sanka oo ku xirmood cabur dareentid adoo hargab ku hayn. waxyaabahaas oo dhan aniga waa lahaan jiray. waana meelahay degaan markii laga soo tago calooshan hore uga soo waramay. meelahay degaan waa cunaha iyo meeshaasan bacararka ah. shuyuuq baan hore uga maqlay. aniga ma ahi aqoon u melihi oo qof macaalija ma ihi, mana ihi qof mataqaanayay waxyaabahaas bartay oo aqoon u leh. laakiin waxaan ka ogaaday kuwa jirkayga ku dhex jira markaan sidaa sameeyay tahliishii aan xagga sanka ku jiiday ilaa xagga ka soo daateen ayay wax ismay way dhawaaqeen, way qalqaleen, way qaylinayeen. waxyaabay ku celcelinayeen waxa kamid ah waanu kadab goonay, waanu ba'nay, waxa nagu dhacay caruurtayadii baa naga dhibatay, xoolahayagii wayo tolla ay waxaas bay ku celcelinayeen. waxyaabay aad u mataqaana qofkii aad ugu celcelinayeen wuxuu ahaa sheekha fadiilatu sheekh cabdinaasir. waxay lahaayeen way cabdinaasiro waanu kadab go'nay, bisinka biyo noqoy, waxaan ku raday waxaasay ku celcelinayeen. marka yaani qofka ama qofka kula jooga baa sheegaya waxa jirkaaga ku jiro dhawaaqayay, ama adigaaba markay hadhito wax ka xasuusta waxay ku qaylinayeen. marka walaalayaal biyahaas aad loogu dadaalo oo mataqaana hala isticmaalo. anigu waxa way waxyaabaas baan ka arkay. alxamdulillah ilaahay baa mahadsan. culays maalin walba culays baa iga kaca jirkayga ka soo mataqaana waxbaa jirkayga ilaahay ka saaraa. caloosha way ku soconaysaa, anigu waan ku mantagay, calooshana way igu socotay. alxamdulillah aad baan fudayd uga dareemay. ilaahay baa ku mahadsan. waxay kugu sameynayaan walaalo markaad damacdid inaad dhirta shidatid ama tahliil tufatid ama salliga nabiga akhrisid ibraahimiyada. walaalaha qaar bay waxay la soo wadaageen carabkii baa culays noqday, waan hurdoonayaa, waan ooynayaa, xasharaad baa igu soo yaacay oo guriga baranbaro iyo goodaado ama dhadhamis ama qallajis qofka soo yaqaano ayaa igu soo yaacday. dooli baan ugu soo yaacay, masas baa igu soo yaacay, guriga xasharaad, cabsi, guriga dhan wuu isla shanqaray. qaar waxay ku leeyihiin waan baqayaayo, waxaan ku raday bisinki maba akhrin karayo, waan ka baqanayaa. walaal waxaad samaysaa marka hore taxsiinka samay. haddaad adkaaru sabaax wal masaa garanaysid subax iyo galabba akhri. haddaadan garanayna waxaad samaysaa toddobadii maxaan ku raday sheekha inala soo wadaagay ilaahay xafido sheekh cabdinaasir samee 7 aayad kursiya, 7 macni suuratul faatiha, 7 aayad kursi, 7 suuratu ikhlaas iyo 7 ah suuratu ikhlaas macni suuratul falaq iyo suuratul naas. 7 samay. haddii aad kursiga garanayn insha Allah qof ha kugu akhriyo biyaha 7 ka hormari marka hore intaadan camal kaba samayn, intaadan salliga akhrin, intaadan biyaha bisinka akhrisan macni diyaarsan oo aan ku tufan. marka hore taxsiin samay. waxa jirkaaga ku jiro weerarka kugu qaadayo oo ku cabsi gelinaya laana waa makhluuq kula mid oo ruuxi ah. waxa ku dili lahayd ayaad samaynaysaa
ayagana marka kuma fiirsanayaan way ku baqa gelinayaan marka iska ilaali inay ku baqa geliyaan way ka oohinayaan wad ooyeysaa wad baqanaysaa wadnaha ku dhacaya carabka culays ku noqonaya marka taxsiin samay awood uma yeelanayaan marka inay ku dhibaateeyaan inay ma taqaanayo awood ka qaadaan inay ku daciifiyaan tabar uma yeelanayaan awood aniga waabay saa iga adkaan jireen oo aan dooni jiray in aan is cilaajiyo mar allaala markaan kitaabka soo kala furo ayaan hurdoon jiray waan seexan jiray marka kale hurdoon mayo markaan musallaan dhiganaya tusbax ma soo qaadanay waxaas dhahaya salliga nabiga kaleey salaatu salaam akhri ama istighfaarta akhri ama xawqalada akhri waan loloonaya quraankii baan isleeyahay akhri kitaabkii baan kala furay carabkii baa yadkaanaya naqaskii baa liigu dhajinaya waan iska ooynaya waa iska aamusay kitaabkii baan dhigaya marka si ayaan jirkaaga dhexdiisa kaagaga soo duulin waxaad samaysaa gaashaan ka sii xiro insha Allah dhufays ka xiro taxsiim ka samay waxaad kaloo samaysaa kuwa xasharaadka iska soo dhigayana bahalaha waxa iska soo dhigaya waa iyagi baa waxay iska soo dhigayaan baranbaro leena waa wax liita oo wax daciifa inna kayda shaydaan kaana daciifa xasharaadka iyaga iska soo dhigaya xasharaad gabdhaha waxay nagu igu leeyihiin bahalaha nagu soo yaacay dhadhamiis masas waxbaana soo weeraray ayagi waayagii dagaalamaya marka waxa samaysaa markii hore insha Allah taxsiimka samay marka damaad aragtidna waan arkay anigu marka damaad aragtida kugu soo yaacana biyaha tahliishaas aad ma taqaanay akhriyaysa ayaa lagu sayraa waana lagu wadaa waliba quraanka akhriyaysa kor baa loo akhriyaa waxaad kala sameynaysaa de waxa haday 1 iyo 2 iyo 3 yihiin intaad macni ka cuudi bilaysto bisinka akhrisidid dil وشاك كدل أنا جوان سبيا ويقصوا عرا يقصوا يعضي بهلها جودة صوبان بيقصوا يعضي حتى مص بيقصوا عرا ويجنا علاج كبلابي مص يربع نفك جري أو متقنا أكتيد جوجا وينتلي جري مرك إن شاء الله ساس سمية يأذن بقى جلين يعني ينكو خلق الجلين إن شاء الله تحسين كجودة دالة ولا له قالية رفت الشضاء رفت ويحكوا ده درس كأصوا قريصة dariska jiiraanka dhibsanaya waxaan baa ka uraya sigaar baa ka uraya waxaan iyaga war kugu akhrinayo jirkaaga dhexdiisa kaaga waramaya dhiigaaga bay dhex socdaan marka iyaga ku waramin dhirta shido malabka cab tahliisha tufo bisinka akhriyo biyo ku tufo insha Allah salliga nabiga kaleey salaatu wa ibraahimiyadana ku dadaal baryada ilaahayna badiya ilaahay baa ma taqaanaayay idin heelinaya ilaahay baa nasrigiisa idin siinaya ilaahay baa idinka guuleynaya ilaahay baa raxmad rabbul caalamiin laana madluum baa taa waxana way ku dulmeene ilaahay baa ku heelinaya ku garab istaaga insha Allah walaalahayga xanuunsan dhamaan waan soo duceynaya ilaahay raxmaanka xanuunka ha idinka qaado caafimaad dhiiga iyo dhimirka gala ilaahay idinku bedelo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتمحو بها خطيئتي وتقضي بها حاجتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتمحو بها خطيئتي وتقضي بها حاجتي اللهم صل وسلم